Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay kulan la qaatay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug. Kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay in laga wada shaqeeyo amniga iyo xasilloonida magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo in sidii ay dalka ugu dhici lahayd doorasho waafaqsan heshiiskii 17 December. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. halkan oo hoyga magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweyne Axmed Qoorqoor waxaa ku soo dhamaaday kulan uu dalbaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. kulanka waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha Hirshabelle iyo Galmudug iyo midowga musharaxiinta. ujeedada kulanku waxay ahayd sidii looga wada shaqeyn lahaa in magaalada Muqdisho jawigeeda nabadgelyada la xoojiyo, laga wada shaqeeyo sidii amniga iyo deganaanshaha magaalada gacan looga geysan lahaa, isla markaana looga hortagi lahaa wax kasta oo dhibaato ku ah ama dhibaato u keeni kara xasilloonida caasimadda Muqdisho oo aad ogeydeen maalmihii la soo dhaafay inay rabshado ka dhaceen, iyo sidii dadka ka barakacay guryahooda ay magaalada ugu soo noqon lahaayeen, fariinta nabadana loo gaarsiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed. waxaa kaloo laga wada hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa in dalka ay si degdeg ah uga dhacdo doorashadii lagu heshiiyey 17 Sebtembar, isla markaana dhinacyada oo dhan ay xoogooda u midayn lahaayeen in la ilaaliyo nabadgelyada dalkana ay ka dhacdo doorashadii lagu heshiiyey, dadka Soomaaliyeedna dhammaantood ay u midoobi lahaayeen, gacmahana ay isku qabsan lahaayeen, loogana fogaan lahaa wax kasta oo dib u dhac ku ah amniga iyo xasilloonida dalka. marka shirkaasi si guul iyo safgarada ayuu ku dhamaaday. insha Allah tacaala wuxuuna hordhac u yahay kulamo ra'iisul wasaaruhu uu doonayo in qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada iyo mas'uuliyiinta uu la yeesho, taasoo dhammaanteed ujeedadu ay tahay in laga shaqeeyo laba shay oo ah in laga wada shaqeeyo nabadgelyada waddanka iyo in laga wada shaqeeyo sida dalka ay uga dhici lahayd doorashadii lagu heshiiyey. kulamadan ayaa imaanaya kadib markii qallaasay ay ka dhaceen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta, iyo sidoo kale markii ay war-saxaafadeed wadajir ay soo saareen maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle. isku soo wada duub xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad adag oo kala guur ah, la iskuna haystaa muddo kordhinta doorashada ka dhici lahayd Soomaaliya oo ay ka biyo diideen musharaxiinta midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaashii hore Soomaaliya. waxaa la sugayaa maalinta Sabtida oo kulan ay isugu imaanayaan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. kulankaas oo laga warsugi doono natiijada ka soo baxda waxa ay noqoto. wariye Dulqaad Media, wariye Cabdinaasir Maxamed Xaaji Axmed, وجوفا Dulqaad Media, freelance journalist and photographer.